Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan sii wadi doonaa muuqaaladeeni ku saabsanaa dhisashada website blogger oo free weliba. Muuqaalkii ka horeeyay waxaanu soo baranay sida loo samaysto pages. Sida halkan inooga muuqata waxaan soo sameynay privacy and policy, contact us, disclaimer, terms and conditions oo ah kuwa ugu muhiimsan ee hadhow Google-ku uu inaga rabo ayaan soo sameynay. Okay, mid walba waynu sameynay laakiin mid walba wuxuu doonayaa in meeshiisa la dhigo ayuu doonayaa. Marka muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida contact us-na loogu soo daro page-ka contact us-ka ah waynu sameynaynaa. Soo kalena page-kan ayaan qaadanaa waxaynu geynaynaa haddaynu hadda blogger view nidhaahno. Page-yadan waxay noo yaalaan page-yadan waa kuwana about-ka waxaynu doonaynaa about-ka hoos keeno page-ka about-ka xagga noo yaalay contact us sidoo kale privacy and policy, terms iyo disclaimer intaba. Hadda mid kamid ah ku dhufto tusaale privacy and policy ku dhufto waa blank waxba nooma yaalaan. Marka hadda ayaan soo gelinayaa la socod wanaagsan insha Allah. Hadda ku soo noqo blogger-kaaga sana ayuu kugu soo kacayaa ma filay marka hore ama post-kiisa soo jooga ayuu marka ugu horeysa ku soo kacaa blogger-ku. Kadib waxaad aadaysaa meesha ay ku qoran tahay pages baad aadaysaa. Kadib page-ka kugu horeeya soo qaado ama ka doontid ku bilow. Haddana waxaan ku bilaabayaa privacy and policy. Waxaan ku dhufanayaa saddexda dhibcood. Kadib waxaan ku dhufanayaa meesha ku qoran tahay view. Kadib waxaan soo qaadanayaa markaa page-ka URL-kiisa sare ayaan ku dhufanayaa. Kadib marka soo dhufto waxaan ku dhufanayaa meesha labada isdul saaran laba warqadood oo copy ah macnihiisu. Kadib marka soo copy-yeesto waan soo laabanayaa. One time baan caadi back uga soo noqonayaa. Kadib waxaan imanayaa meesha blogger-ka ee hore. Kadib saddexda dhibcood ee sare bidixda soo qabo. Kadib waxaad soo gelisaa waxaad tagtaa meesha ku qoran tahay layout. Kadib markaad tagtid layout oo kor wada jid dhammaantiis layout-ka. Kadib meesha ugu hooseysa ku qoran tahay link list kaalay. Kadib ku dhufo qalinka dushiisa. Kadib waxaad soo doorataa meesha ku qoran tahay privacy and policy ama ka aad sidato xilliga linkigiisa aad soo qaaday. Okay, waxaad ku soo dhufataa qalinkan. Kadib waxaad ku dhufataa meesha ay ku qoran tahay https. Kadib ka masax dhammaantii. Kadib dusheedaas u xaji. Marka soo xajiso pasta ku soo baxda ku dhufo. Kadib waxaad arkaysaa in qoraalkii aad sidatay oo sax aad sidatid privacy and policy baan wataa. Kadib waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay save. Dhammaantu sidaas la mid ah loo soo wada gelinayaa. Okay, haddaan save idhaahdo haddana aan save tan hoos dhaho. Waxaan sameynayaa page-ka xiga ayaan soo qaadanayaa. Marka page kale si uu igu fududaado hadda halkan ayaan ku dhufanayaa xagga sare. Kadib meeshan blogger-ka dushiisa ayaan xajinayaa si aan page-ka uga soo noqonin. Kadib open new tab ku dhufanayaa. Waxaan sameysanayaa laba khaanadood waa kana hadda dhowr khaanadood bay noqdeen 1 2 3 khaanadood bay u kala baxeen. Marka waxaan doonayaa waxaan rabaa inaan markaasi aan isticmaalo kulba kaan doonayo si aanan dib badan iga qaadanin. Okay, hadda waxaan ku soo dhufanayaa kani waa privacy and policy-gi. Kadib waan iskaga soo noqonayaa ka. Okay, marka san yahay waxaan ku soo dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay pages baan ku noqonayaa. Kadib waxaan soo qaadanayaa kan ay ku qoran tahay about waynu soo gelinay wax about ah. Kadib view baan ku soo dhufanaa. Kadib marka view ku soo dhufto xagga sare ayaan ku dhufanayaa. Kadibna waxaan soo qaadanayaa copy-ga. Kadib waa ka soo laabanaysaa. Waxaad ku soo noqonaysaa page-ka meeshii blogger-kaaga. Aniga hadda 3 khaanadood ayaan ka dhigtay ama saas rajayn aad ka dhigatid oo sidaan ku sheegay new tab aad ka dhigatid. Kadib waxaad ku soo noqonaysaa layout meesha ku qoran tahay. Kadib hoos baad u wada jiidaysaa. Waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay link list waa isku wada mid. Dhammaantood hadda mid soo geliso waxa kale oo soo wada gelin karaysaa. Wakaasi xagga sare noo saaran about. Kadibna qalinka ku soo dhufo. Haddaan uu page-ku kuugu jirin waxaad sameynaysaa waad page-ka soo gelinaysaa meel fogna lagama soo geliyo. Halka kan horta marka masaxdid xaji kadibna pasta ku dheh. Kadibna save taas sare ku dhufo.
xagan ayaa page kaga soo daraysaa dul magaca page meesha kugu jirin adniyada sin hore soo sheegnay okay save oranaya waxa ku soo noqonaya bloggerka xaqiisa hore kadibna waxa soo qaadanaya disclaimer-ka view baan dhaxaya URL-ka sare soo qaadanaya kadib waxaan ku soo laabanaya meesha ku qoranayaan meesha layout-keygii ani laba qaanadood baan ka dhigtay hadda way sii furnaanaya mar walba kadib waxaan dooranayaa disclaimer qalinkeeda kadib waxaan halkan kusoo basti gareynayaa disclaimer-ka aan watay save baan odhanayaa soo saayaan ka laabanayaa waxay soo hadhay terms and conditions isna waan view baan odhanayaa okay kana waan soo qaadaya isna soo on kadibna waxaan kusoo noqonayaa meesha bloggerka ii yaalay layout-ka kusoo laabanaya linkigiisi kadibna terms and conditions isna qalinkiisa taabanaya kadib marka qalinkiisa taabatid waxaad kusoo basti gareynaysaa wixii aad wadatay kadibna save odhanaysaa kadibna dhamaantood save bawada odhanaysaa hadda waxa meesha ka maqan oo kaliya aynu sameyn doonaa contact us laakiin page-kii kale aynu sameynay bal hadda aynu eegno inay shaqeynayaan oo kuwa page-kaas ka xidhno kuwan horta waxaan eegnaa hadda page-ka inuu shaqeynayo waxaad kusoo dhufataa xagga sare kadibna waxaad tidhaahdaa view blog kadibna hoos daadeg page-keenu waa kuwana waxaan ku dhufanaa tusaale about-ka ugu horeeya hadda about maxaa ka soo muuqda wixii about-ka ku qoran waxaan waa iska qaadanaa dad baan tiradiisan kartaa waad soo gelin kartaa linkiyada iyagana waynu baranaa si linkiyada loo soo geliyo wakana about waa in loo sameeyay haddii aan haddana tago terms and conditions tusaale terms and conditions kana waa ku jira dhamaantood ku ka way inoogu jiraan oo page-kii Google-ka inaga doonayay way inoo diyaarsan yihiin hadda waxaan ku xigsiinaynaa sida loo sameysto contact us page muuqaalka xiga ayaynu ku soo dari doonaa insha Allah contact us page muuqaalka waxa ku soo koobanaa intaasi aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh